kusoo dhawaada warka subax ee Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobada wararka saakaan idin hayno waxaan ahay Bashir Nuur Maxamed qodobada warka ugu waaweyn waxay kala yihiin وريا ما هذه قربتها شنو saxaafadda u soo bandhigay laba nin oo dhalinyaro ah ururada bulshada rayidka iyo qaybo ka mid ah dhalinyarada u ololaya xuquuqda aadamaha ayaa maanta shirka oo xaaladooda aan halka lagu soo wari karin xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta ka soo horjeestay inay ansixiyaan waa uquba ayada ee Soomaaliga caqad ku geysatay markaas gabdhaha la qabsaday iyo dambiyada faldambiyada dalkeena ka dhaca gardarada isugu hiliyaan waxa isugu hiliyaan dulmiga Soomaalida faranka la xiriira kufsiga ayaa dhowr mar laga maqlay xitaa hooyo ahayn baa dareemi kara ilmo yar oo aan dambi lahayn oo saqiir ah tuub iyo xoog iyo tahdiid iyo xor yimid inay ansixiyaan sharciga aqoon u lahayn aan akhrin mufaawadaad laga galo ee laba qoys ay ka hadlaan ma banaana kufsiga baa la ansixinaya taasi waa 24 bishii hore waasiyaadiga ku hayo oo ku gali jira waxaa kiiskan loo hayaa ilaa 11 eedeysane iyo eedeysanayaal kale oo hadda lagu daba jiro soo qabasho waa in dambiilayaasha maxkamad la saaraa xukunkii sinada xukun ka khatarsan bay leeyihiin oo rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay kuwaas gabadha Soomaalida ee maanta Soomaaliya ku nool iyo gabadha ku nool maanta Canada ama America ku nool kufsi u geystay wiil yar oo 9 jir ah kan isaga imka la yiraahdo xeerka kufsiga wuxuu ka mid ahaa xeerka ciqaabta guud ee uu lahaa Talyaani inay mujtamac muslima dhexdiisa ku soo noqnoqotana waxay tilmaamaysaa fasaad iyo khalad in maalin kasta loo soo gudbiyo in ka badan la naxariistii jannaha ka waraabiye waxa xabaalaha maanta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha 8aad 2019 waxa lagu fulay westernka meel ka badan ee dumarka jirkooda lagu iibin jiro روحي حوين نعبها يستاهي نبقى معها روحي حولها نبارك يستاهي نعصوي روح عن حسين ناس كيفو شقي
gabadheeda waxa saan u galay waa wiilka oday axmedka aan deriska nahay wiilkiisa waaye bal maxay ka galabsatay cunugtaas yarta ah bal maxay ka galabsatay muxuu sidaan ugu galay oy ka galabsatay isdeji adeeradeeda gabadha yimideen ee dhibkan saaka muu soo gaaray mase mu kaloo soo gaaray ii sheeg saaka markay iskoolka aaday waaye xilligou dhibku gaaray balaayaha ku dhacdee waxa habaaranoo dulliyaha gabadha iga helay inkaar haddaba kacdee wiilkan odayga dhalay aad ayuu u fiicnaaye maxaa ninkan balaayada ah keenay wuxuu doona ha ahaado wuxuu doona ha ahaadee ninka gabadhayda saan u galay nolol ku sii daymaa walle inaan nolol ku sii daynaynin gabadha adeeradeeda idinkaa ah sharciga unbaa iga reebi karee xabsiga waa inaad ii dhigtaan gabarta unuku waa kula dhalnay adeeradeedna waan nahay fadeexana ma rabna inay nagu dhacdo arrinkaana iyow bannaanka noogu bixin maxay tahay ceebta aad sheegayso ma ninka gabadhayda mustaqbalkeedii saan u galay ayaan dhaafi karaa oon ka aamusi karaa kama aamusi karo xaliima isdeji gabadha waan kula dhalnay waana micnaha mini ilaahay ku hidmahayo dhibka ku dhacay wuu nagu wada dhacay waana macnaha garteedna waa gelaynaa annagaana kaa xigsannay aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin sidaad ii sharafteen oo aad iiga ogolaateen inaan wada hadalno adduunyadana waxaa waaye iskuma aadano waa iska camar ilaahay sida yacni mataqaanaa aad wanaagga aad u jeceshihiin waayo haddaad ahaan laheedeen dad xumaanta jecel ceebteenna magaalada dhanay ku fidi laheede waxaan noqon lahaynay gaar ahaan markaan aniga iska hadlo iyo wiilkan adeerku ah waxaan noqon lahay adeer ceeboobay maadaama ceebtiinna allah asturee ceebteenna aad asturteen wiilkan adeerku u ahna uu falkaas gabadhaas oo aad adeerku u tihiin u geystay aad iyo aad ayaan uga naxay aad iyo aad ayaana uga xumahay raallina kama nihin daan adeeryaala nahay gibso u dhacaa lama dheheesee loo dhaqmaaha la yidhaahdaa soomaali wey mataqaanaa isdishaa waa gabdhaha waa la kufsadaa waa la dhibaateeyaa saasay tahana waa laga dhaqmaa waana la xalliyaa marka waxaan jeclahay sida soomaalidu dhaqankeedu ahaa oo geedka hosiis inta la yimaado odayaasha garta ay gorfayn jireen inaan arrinta aan u galno idinkuna aad raalli noqotaan gabarta hadday daawo u baahan tahay anaa diyaar la ah wixii xaloo dhan anaa diyaar la ah anaa adeerkiiya adeeryaala soo dhowaada gabartana adeerkeedoo kalaa nahay waalidkeedoo kalaa nahay maadaama uu shilkaan dhacay in laga dhaqmana ay u baahan tahay aadna tihiin adeeradii gabadha adeeradeed odayaashii nabadoonnadii beesha ugu sarreeyey si arrintan aan u xallinno horena aan idinkaaga codsaday haddana aan xaal masuur ku dhammayno ayaan idinka codsanayaa inaad iga oggolaataan axmedow qalad ku sax haddii aan samayn lahayn waxaan ku tashannay aba aan samayn lahayn ma aha waxaa marka idinka rabnaa inaan macnaha ma aragtaya si is aragti ah oo aan isla aragnay annagoo dhan aan wixii aan ku dhammayno annaga dhan macnaha ma aragtaya inaan saxno arrintii foosh xumeedee dhacday adeer cabdulla iyo adeer faarax allaydin barakeeyo aad iyo aad aa u mahadsan tihiin sidaad ii sharafteen adduunyadana sideeda muxuu ahay lagama dhergo xoolo adduunyana muxuu ahay
sharaftaa ka weyn gabarta maadaama wiilkayga uu xumeeyey xil yaro oo waxaa idiin wadaa oo sumaynay tiraa soomaalidu khayr allahis haya cabdulle maxaa soo xalisay ii sheeg bal reerkii waa la kulanay odayaashiina waa la xaltannee ee iridda ka wareeg aan fadhiisannay iga wareeg ah seen kaaga wareega gabadhayda dhibaatada haysata bacmadow aad ka soo qaadata soo maaha sidaas intaad gabadhayda xallin lahaydeen ninka dacwayn lahaydeen xeri lahaydeen ayaad bacmadow ka soo qaadata soo maaha war naga tag annagaa wax walba raadsanayne ifraxa aamusin haddii aad aamusto maanta ninkaas dhibaato kale ayuu gabdhaha kale u geysanaya wuuna kufsanayaa adeeradaa waxay ku dhaqmeen waa dhaqan soo jirana weliba xaqdaro ku salaysan gabdho badan oo Soomaaliyeed noloshooda iyo mustaqbalkooda lagu galaaftay adiga noqo tusaale muuqdo gabdhaha ka dambeeyay markii uu dhibkan soo gaarsiiyay ay kugu deesadaan gabadhayda maxaa ku soo istaajiya xageed soo socotaa sharciga ayaa lugayay ku doonanayaa hooyo waxaan dacwad ka gudbinayaa ninka dhibaatadan ii geystay waxaad samaysaa faylkii aan kuu sheegaya xafiiska igu keen walaal maxaan kaa caawiyaa hani gabadhaan balbi u keen walaal waxba aa cabsan si deggan wax igu sheeg si aan kuu caawiyo waajibkayga inoo guto fadlan ha cabsan meeshan waa xarun booliis ammaan ayaadna ku tahay marka si degan wax walba igu sheeg daraad anigoo iskuulka imaaday ayaa waxaa iga daba imaaday gaari cad waa shakiyey waa socod boobsiiye kadib haddana gaariga wuu iga daba imaaday si xowli ah horteeda ayaa lagu baakimay waxaa ka soo degta nin afka ayuuna si xoog iiga qabtay xoog ayuuna gaariga igu saaray kadib maxaa dhacay كده ما هذه قربت أصور أشياء وكلمة هي ما حاول عادي تقبر كل مرة لين وكبريت كده ولا يقولين الله لا يوم الله لا يوم وحاول عادي تقبل محمد يسوني رقمة هي وكبر كل مرة لين حكاية مستقبل كده وعيارين وكبري أولاد كده مستقبل كده وعيارين وكبري كده وكبري أولاد كده الله لا يوم الله لا يوم aniga aabahay wuu dhintay hooyadii keliya ayaa ii nool hooyadeena aniga iga agtegi weyse waxaan la xiriirtay adeeradeena waxay ku xaliyeen arrinta habdhaqameed waxayna qaateen lacag arrinteedan sidaa ay uga aamuseen waxba ha ooyin walaal waadna ku mahadsan tahay sida aad noola soo xiriirtay waxaa ballan ah inuu maraaci qaabta u mudan yahay ninkii dhibkaa geystay qof dumar ah oo dhib gaara ayaa halkan joogta si degdeg ah ku imaada
galab wanaagsan wanaagsan gurigan yaa ku nool aniga wiila saaxiibana magacaa yuusuf maalintii isniinta intay jirtay meelna ma jirin ma wax dhibaa jira gabar ifraax la yidhahdo ma taqaanaa haddaad mar dambe isnuuxisid madaxan ku fujinayaa saan u soo orday waan soo daalay maxaa kugu dhacay وحبا